wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo gabagabaysay tababar loo qabtay howlwadeennada wasaaradda haweenka iyo adeeg bixiyayaasha ka shaqeeya arrimaha carruurta. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa macallimiintii iyo ka shaqaalayaashii juhdiga badan ee sameeyeen saddex maalmood iyo cilmiga meesha ku soo bandhigteen. waxaan rabaa sidoo kale inaan qiro oo xaqiijino doorka hay'adda UNICEF oo qayb lixaad ka qaadatay wadana hawshan quruxda badan ee loogu adeegayo ummadda sidii ugu hafneyd ama ugu habooneyd in mar walba aan isu xusuusino tababarkana wuxuu dooranaa midaas kuna weydaarsanay oo ku kala faa'iideynayna habraaca ugu wanaagsan marka la qabanayo ama la fulinayo arrimaha oo adeegida carruurta ama dadka tacadiyada la kulma bulshada dhexdeeda. waxaan sidoo kale dhageysanay hay'adaha caqabadaha aad soo wajahdaan iyo waxa la kulantaan iyo recommendationada ama talo bixinta aad ka bixiseen oo iyadana aan si qoran oo dhameystiran ula wadaagi doono madaxda naga sareysa iyo dawladda qaybaheeda kala duwan kale. tababarkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa la isku weydaarsaday aqoon kororsi ku saabsanaa arrimaha carruurta iyo tacadiyada ay la kulmaan iyadoona la isla gorfeeyay sidii wax looga qaban lahaa. maxamed agaasimaha waaxda jinsiga ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkani waxa uu daaranaa. waxaan bogaadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad macallimiintii sidoo kale hawshaas sida qiimaha la soo bandhigay iyo idigana cilmiga nala wadaagteen. waxaan rabnaa haddii Ilaahay inaan si dhameystiran aan soo xirino barnaamijkeena waxaan isku daarmeynaa wixii aynu ka hadalnay ee cilmiga ahaa inaan fulino insha Allah oo tooliskii ama waxyaabihii loogu talagalay agabkii loo isticmaalay ee kiisaska lagu handle gareynayay si qorshaysan oo tixraac leh oo qoran hadda kadib insha Allah wax walba uu noqdo oo meel loogu soo hagaago iyo meel laga raaco uu yeelan doono insha Allah. wana inoo xidhan tababarkeennii 3 maalmood ahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.